shirkan maanta soo gabagabobay oo muddo 5 cisho ah ka socday magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya isla markaana looga hadlayay maamulida kharashaadka dawladda hoose ee Muqdisho waxa soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya waxa ka qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale agaasimiyaal sidoo kale shirkan maanta xiritaankiisa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ugu horeyn gudoomiyaha degmada Cabdilcaziz waxa uu ka warbixiyay faa'iidooyinka ay ka heleen muddadii shirkan uu socday waxaan ka faa'iiday barnaamijka BEM waxyaabo aad u qiimo badan oo baahan dawladaha hoose runtii waxaan halkan ku baranay qaabkii aan wax u qorshaysan lahayn haddii aan wax qorshaysan sideen u fuli lahayn kadibna bulshada aan wakiilada ka nahay aan u gaarsiin lahayn adeeg iyo service aad u qiimo badan mudane Maxamed Axmed Deriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxa uu kula dardaarmay gudoomiyaasha degmooyinka waxyaabihii ay kulankan ka faa'iideen muddadii uu socday inay bulshada dib ugu laabtaan uguna shaqeeyaan waxaan maanta joognaa marka gabagabadii waxaan rajaynaynaa wixii halkan aan ka qaadanay inaan ku dabaqi doono dadkeena wax badan oo hadda kale oo aan kasii idhaahdo ma aqaano inta ugu muhiimsan intaasay ahayd meeshaan in wax lagala tago waxa lagala tagana ay noqoto wax dadka maamulka loo hayo intaan waa intii shaqada ugu muhiimsan saan ii sheegay wahaydin gabagabadii waxa kulanka soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya wasaaradana mar walba waxay macnaa u taagan tahay inay tayayso sidii cid waliba ay iyadu macnaa u maareyn lahayd kharashaadkeeda ila qarashku u baahan yahay marka ugu horeydo sidii aad u qaadan lahayd inaad taqaan marka labaadna sidii aad u bixin lahayd qarashka intaas marka hadii aad aqoon sidii aad u qaadan lahayd iyo sidii aad u bixin lahayd waa dhibaato marka intaas macnaa ayaan isku xil saarnay in macnaa aad ka faa'iideystaan oo aad barataan Axmed Cumar Sheekh Nuur Honkabal TV magaalada Muqdisho.